haddii aad doonayso inaad badbaadiso tamartaada, xorriyaddaada iyo wakhtigaaga, baro adeegsiga ereyga maya. waa muhiim inaad naftaada difaacdo oo dadka iyo xaaladaha aan kugu habboonayn si cad ugu tiraahda maya si aad u ilaaliso caafimaadkaaga maskaxeed iyo jir ahaanba. waxaa caadiya inaad iska diiddo waxyaabaha aan faa'iidada kuu lahayn. waa xaqaaga inaad tiraahdo maya si aad u ilaaliso farxaddaada iyo tamartaada. haddii ay jiraan waxyaabo noloshaada ku keenaya culays iyo walbahaar, marnaba ha ka waaban inaad tiraahdo maya oo aad iska diiddo. ixtiraam naftaada, daryeel maskaxdaada iyo jirkaaga. marka ay noqoto inaad howlahaaga qaar aad joojiso si aad dib ugu soo kabato, aadna u hesho wakhti aad ku nasato, samee sidaas adigoo aan wax dareen kalsooni darre ah qabin. dunida kugu xeeran waxaa ka jira culaysyo fara badan ee naftaada ha caddibin oo dusha saaran waxaadan awoodin qaadidooda. ogsoonow mar walba maaha inaad goobjoog ahaato ama aad dadka la socoto. wax dhiba kuma jiro inaad muddo dadka ka dhex baxdo adigoo naftaada wakhti la qaadanaya. haddaba haddii ay wax ku dhibayaan, ogow inaad u leedahay awood iyo xaq inaad iska diiddo. wixii aadan awoodin dhib ma laha inaad qofka ku tiraahdo ereyga maya wakhtiga ay munaasibka ku tahay. daryeel badan ayay kaa mudan tahay naftaada. wakhti sii naftaada oo ha iloobin inaad u naxariisatood jeclaato. iska ilaali waxyaabaha kugu keenaya culays oo dadka u sheeg inaadan qaban karin wixii aadan awoodin qabashadooda iyo inaadan qaban karin wax kastoo aan kuu wanaagsanayn. kelmadda maya waa awood ee bara sida loo yidhaahdo wakhtigeeda ku habboon.